daawaday kusoo dhawo muuqaalkan waxaan rabaa inaan kusoo gudbiyo qodob kamid ah Facebook oo isoo weydiiyay mid kamid ah asxaabta ku xiran page-ka. Waxaan jawaab ugu dhigay inaan kasoo duubo muuqaal sababtoo ah waxaa laga yaabaa maalin ciladan adnaa inaad la kulanto ama haddaba laga yaabaa dad badan inay haysato ciladan laakiin ay la yihiin xal ama markaas qof ka xaliya. Inta aan soo gudbinin macluumaadka muuqaalkan waxaan marka hore ka codsanayaa in aad muuqaalka like saarto si ay shirkadda Facebook ugu qayb qaadato inay muuqaalkan dad badan gaarsiiso. Adna muuqaalkan daawanayo share garay muuqaalka si aad adin ugu qaadato inaad muuqaalkan gaarsiiso dhammaan asxaabtaada oo aad friends-ka tihiin si ay u faa'iideystaan muuqaalkan faa'iidada leh. Haddii aad u baahan tahay inaad comment soo qortana qaybta hoose commentiga ama faalada way ay ku furan tahay waxa aad doontid ayaa soo qori kartaa. Aan gudaha u galo macluumaadka muuqaalkan. Marka aad muuqaal ama sawir soo dhigto bartaada Facebook qofka arkayo sawirkaaga iyo muuqaalkaaga ama postigaaga waxa uu muuqanaysa saddex shay oo Facebook caanka ah sida like, comment iyo share. sida hadda adiga muuqaalkan aad daawanayso qaybta hoose ee kaga muuqato like, comment iyo share-ka ay qof walbana u muuqanaysa markii aad adiga Facebook-gaaga dhigto muuqaal ama posti ama wax loo yaqaano sawir. Saaxiibkana soo weydiiyay su'aasha aan muuqaalkan dartiisa aan u duubayno wuxuu ka cabanayaa inay ka maqan tahay calaamada share-ka ah oo dadka asxaabtiisa ah muuqaalada oo dhigo bartiisa Facebook ah ma ka qayb qaadan karaan oo ma share garay karaan ama asxaabtooda ma sii gaarsiin karaan. Muhiimadda muuqaalkan guud ahaan waa sida calaamada share-ka ah oo saaxiibkaasi ka qarsan aan banaanka u soo saari lahayn haddii ay qarsan tahay. Haddii aad adigu u baahan tahay xitaa waxa aad soo dhigtay inaysan dadka share garay karin ama share-ka inaad ka xiratana meeshan waad ugu faa'iideysan kartaa oo waxaad ku baran kartaa sida calaamada share-ta ah loo qariyo. Yaan war badan idinku daalinay aan idin tuso sida aad isaga xiri lahaydeen ama aad u furan lahaydeen calaamada share-ka ah ama buttonka share-ka ah. Soo dhawaada. Marka aad doonayso in aad muujiso calaamada share-ka ah ama inaad soo baxsato marka hore waxaad furaysaa application-kaaga Facebook waxaad ka xulinaysaa qaybta profile-ka ama gacantaada midigta qaybta sare kadib waxaad tagaysaa halka hoos ay ku qoran tahay settings and privacy kadib halkan waxaad ka xulinaysaa settings. Marka settings xuto kadib wuxuu ku keenayaa wajahadan ama qaybtii markaasi profile-kaaga laga maamulay. waxaad taabanaysaa qaybta sare ay ku qoran tahay profile settings. markaad profile settings aad taabato waxaa ku soo baxay qodobyadan halkan kore privacy ay ku qoran halka kalena waxa ku qoran profile and tagging taabo kadib waxa ku soo baxay qodobyadan meesha ku qoran ama qoraaladan qaybta koowaad waxa ku qoran who can post on your profile. qaybta labaad waxa ku qoran who can see what others post on your profile. qaybta saddexaad allow other marka qaybtan rabnaa anaga allow others dadka kale waxaad u ogolaataa to share inay share gareeyaan your posts to their story inay ku share gareeyaan ogolow. marka halkan ayaa taabanaysaa halkan haddii marka ay ka tahay off waxaad ka dhigaysaa on calaamadaada kadib ay ku soo baxee meeshan yes ay ku tahay ana haddii yes ay tahay calaamadaas share ku arkaa qof kasta oo ogolaad inuu wax share gareey karo. halkan no haddaad taabatidna qofka calaamada share dhan ayaa markaas ka qarsamayso oo ma loo ogolaanayo inuu wax share gareeyo. marka waa intaas uun. Waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka ka faa'iiday oo aad raacday istaabiyadii markaasi aan tilmaanay. Ku mahadsanid daawashadaada. Waqti aad ku bixisay muuqaalkan daawashadiisa waan kaga mahadcelinayaa. Inta aan ku kulmayno muuqaalka xigo waxaan idinkaga tegayaa sida nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.